بني آدم كوبا بلوغيسي هوري la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 باقنوا برشدا ددوينها باقنوا waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada بلانتينوا boqolkiiba boqol bugayo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دوادا برنامج كحيسها بدن ترتك على أبورك التكنولوجيا دا سنة كلابد كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجو ترى جلي رجلينته أقوياء كي يدليرت كل دوان جودهم با قبل كل دوان السومال لان الدنيا إسلامر كاسنا برتي أقوان التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسا إسلامر كاسنا مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha إلا بهيايو لبلارياي إلا بهيايو لبلارياي بلانتينوا بقول كيبا بقول بقايو قالين لغو براتما waxaan u yeeri doonaa oo barnaamijka si toos ah u bilaabi doona isla markaasina halkan bulshada kula wadaagi doona xubnaha guddiga aqoonyahanka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda waxaan u yeeri doonaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo kamid ah bahda ganacsiga Cabdiraxmaan ku soo dhaw waxa mar labaadan u yeeri doonaa injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo kamid ah aqoonyahanka dhinaca IT-ga oo isna kamid ah xubnaha guddiga halkan caawdad ku kala saaraya waxaan isna u yeeri doonaa injineer Farxaan Aadan Haaruun oo kamid ah xubnaha ICT-ga ku takhasusay oo isna halkan guddiga kamid noqon doona waxa kale oo u yeeri doonaa Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim oo kamid ah bahda guddida oo isna jecel inay la soo dhaweysaan ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa Professor Muwarig Ibrahim Ar oo isagu ah isku dubaridaha iyo gudoomiyaha guddiga ee barnaamijka tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda casriga ku soo dhaw Professor Ar aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahadnaqayaa sida diiran soo dhaweysan xubnaha guddiga haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim Ar مبارك إبراهيم آر وقدوميها قدد كالسارسة ترتمياشا وانا صوصارها برنامجك سيدو كالنا وقدوميها جامعة بدر وكما عبد الرشيد محمد اسماعيل عبد الرشيد محمد اسماعيل وحاو شهادة ماسترز كقاطي سوفتوير انجينيرين تاسو وكقاطي دالك انجريسكا عبد الرشيد وحاوي مامولها قود الشركة سهل تكنولوجي سوليوشنز وأحمد كميد الشركة وقوا وين سومالي لان بحياء ذيك تكنولوجيا وكما فرحان آذن هارون فرحان آذن هارون وحاو شهادة ماسترز كوهايستا علميغا كمبيوتر ساينس أو كقاطي دالك إنجريسكا وحاو مدردير لسو شقيني شركة عالميغا دهبشيل أو كسوقبتي حلال كلا دوان وحاو هدي هي مدحاو قصرية تكنولوجيات شركة دهبشيل جروب وكما دكتور عيدروس محمد إبراهيم دكتور عيدروس محمد إبراهيم وحاو شهادة PhD كوهايستا علوم تا IT دا وانا قاسمها معهد كا IT دا علمي
academy oo ku yaala magaalada hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliya dhinaca IT-da waa kuma cabdiraxmaan cali xirsi cabdiraxmaan cali xirsi waxa uu shahaadada masters ku qaatay culumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha sharikada Hasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hogaaminta maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii tartanka halabuurka teknolojiyadda casriga ah ee waxaanu yeedhi doonaa gruubka Future Tech oo ka mid ah gurbiyada habeenkan caawaalka ku tartamaya oo jecel qaybtii ugu horeysay inay soo galaan muujiga koowaad ee presentation-ka ay soo ku soo bandhigaan waxyaabaha habeenkan caawaa kaga qayb galaya tartanka waxaan soo dhaweynayaa Future Tech oo jecel inay la soo dhaweysaan Future Tech ma jecel in halka ka bilaaban presentation-koodii waxaad haysataa muddo 4 daqiiqo waxaad uga faa'iideysan doontaa malin aad nala wadaagto tartanka habeenkan caawaad kaga qayb galaysa barnaamijka السلام عليكم جروب فيوتشر تك waxay ka hadlayaan waa smart irrigation device marka wuxuu ku saabsan yahay horta waa aalad automatic u shaqeynaysa marka waxaan ka fikirnay maadaama beer waraabka inta badan dhibaatada ka haysata ay tahay in biyaha khasaariyaan oo mararka qaar ay laawaan waraabinta marka ceelka loo eego mashiinka biyaha soo tuurayana maalin iyo hawlo badan ku keenay beeraley badan markii aan la kulanay interview observation la sameeyay waxay noo sheegeen in lacag badan ay kaga khasaarto maamulkii biyaha gaar ahaan beer waraabka marka mushkiladaas baa markii dambe waxaan ka fikirnay sidee baa loo maareyn karaa marka dunida inaga horeysa waa hab laga isticmaalo smart irrigation device-ku marka waxa kale uu sameeynaya waxa weeyaan system-ka marka lagu xiro pumpka in biyaha uu control marka wuxuu sheegayaa by the time beertu u baahan tahay biyaha waxa jira soil moisture sensor sheegaya in marka ay beertu u baahan tahay oo lagu rakibayo haddii marka ay directayna inaana u baahnayn marka qalabkii kulli halkan aan ku haynaa waa arki doontaan business model-ka ayaa laga iibinayaa inta badan waxaan qorsheynay waa beeraleyda iyo beeraha guryaha lagu sameeyo labadaba waxa kale oo distribution-ku noqonaya greenhouse suppliers-ka in aan raacino marketing model-ku wuxuu noqonayaa inta badan inaan raadsano greenhouse suppliers iyo social media-ha inaan sameeyno marketing team beeraleyda u taga oo bara maadaama ay habkan garanayn waxaan sameyn doonaa munaasabad lagu shaacinayo xagga competitive-ka waxa jira inaanay jirin maadaama waxa jira qolo manual oo system-kii gacanta ku rakibaya waana noociisa ugu horeeya automatic ahaan system-kani timeline-ka dhinaca market analysis-ka waan qabanay waxaan ogaanay inay baahi jirto loo baahan yahay waxaan qorsheynaa 15 March in aan munaasabadiisa lagu shaacinayo sheegno oo marka customerska aan iyagana gaadhno hadii alla ilaa oo iyagana kordhi doona cost benefit analysis-ka marka ku jira initial cost-ka hore waxaan ku qiyaasnay markaan isku wada geynay in uu ku kacayo 13,280 marka lacag ahaan anagu imika waxaan haynaa 3,600 aan doono lacagta inaan ku darno sanadka hore waxaan filaynaa hadii alla ilaa in lacagdan 7,212 aan soo xareyno markaan itemiska konton mid aan iibino oo marka qiimadan xabadii 525 ku kacayso waxa kale oo jecelnay marka qaabka u soo xareyna kharashku inuu noqdo tababar aan u sameeyno graduateska beeraha ka baxay kulliyada beeraha oo si iyaguna u fahmaan waxa kale oo maintenance baa jiri doona iyo accessories hadii alla ilaa aan keeni doono target-kaygu waa beeraleyda iyo greenhouse suppliers-ka iyo beeraha guryaha inta badan deerarka laga sameeyo iyo iskaashatooyinka beeraleyda marka waraabka marka waa kuwa soo saaray inta badan kharashka system-ku qaabku u shaqeynaya wuxuu leeyahay controller marka wuxuu controlaya soil moisture-ka temperature-ka iyo humidity-ga waxa kale uu leeyahay marka LCD display ku sheegaya carbon level-ka wax marayaan biyaha ka yimaada marka water pump-ka waxa jira lead indicator marka beertu hadii biyaha ka dharagto waxa ku sheegay inuu green soo saaro
hadday dry tahay oo biyo la'aan jirtana markaa in uu cagaar soo saaro systemka isku dhammaystiran all in one markaan eegno wuxuu ka kooban yahay aaladda irrigation system device-ka daynamada iyo markaa geedka hardware-skiisuna waa kuwa teamkuna waa kuwa waa mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay shacabka Ottoman si fiican baad ugu faa'iidaysatay afartaadii daqiiqo waxaad soo bandhigtay presentation si degdeg ah u sameysay waxaan jecelahay qiimeyntii koowaad inay maraan kooxda groupka Future Tech oo halkan lagu qiimeeyo waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo xubnaha kala duwan ee guddiga halkan ku qiimeyn doona iyadoo wixii su'aalaha qaybta hore aan ku dhameeyay kadibna qiimeynta geli doono qiimeyntii horeysay dhinaca waxaan ka bilaabi doonaa bidixda Dr. Aydruus kooxda Future Tech oo halkan ku soo bandhigtay barnaamijka ku caawinayaan dadka beeraleyda oo dhinaca tiknoolajiyadda casriga ah hal-abuur ay sameeyeen maxaad ku qiimeysay oo kaaga baxay presentation-kaasi okay teamka markaan eegay presentation-kooda oo waliba consumer note-kooda wuxuu sheegayaa inay isticmaalayaan programmable devices marka halkaa waxaan ka arkayaa inay devices iyo softwares isku wada xidhayaan marka waxaan siiyey 70 boqolkiiba 70 aad baad u mahadsan tahay injineer Cabdirashiid waxaad siisay markii aan eegay groupka oo isticmaalaya hardware iyo software ay igana muuqato maxaan raadayay xirfad badani waxay siiyey boqolkiiba 80 waa tahay Cabdiraxmaan Cali Herse 70 waa tahay ugu dambeyntii engineer Farxaan runtii dhinacyo badan marka laga eego iyagoo isticmaalay Python oo waxyaabo badan oo artificial intelligence ama automation ka lagu sameeyo barnaamijkoodana maybe looga faa'iideyn karo waxyaabo badan oo kale oo automation ah oo caafimaadka geli kara waxyaabo badan geli kara markan eega qaabkay u forecast gareynayaan sanadada soo socda iyo halku qarash ka soo gali doono iyo cid ka iibinayaan waxaan siiyay 85 aad mahadsantiin intaas waxa ku soo dhawaad waa qiimeyntii hore ee wajigii hore barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan gudageli doonaa qaybtii su'aalaha xubnaha halkan taagan ee ka socda Future Tech iyo waxaan kala bixi doonaa xubnaha guddiga iyo wixii su'aalaha hayaan ka faa'iideystaan 15 daqiiqo ayay haystaan oo dhamaanba labadii horena waxaan siinay 15 daqiiqo oo groupkii saddexaad 15 daqiiqo ayaan gudageli doonaa waqtiga si toos u bilaabmaya waa tahay ku soo dhawaada xubnaha guddiga su'aasha koowaad aan ugu horeeyo dabcan anigu beer baan leeyahay ma aqaano goortay biyo u baahan tahay iyo markaan u baahnayn sidoo kale ma aqaano biyahan ku shubayaa miyay ka dhar ma enough water baan siiyay biyo ku filan baan ku shubay mise biyo ka yar baan ku shubay haddii baa noqdo client idinku aad leedihiin ama macmiil idinku aad leedihiin oo qalabkan idinka iibsanaya sideebad iiga iibinaysaan maxay tahay faa'iidada aniga beertayda aan ka heli karayo waad mahadsantahay problemkeenu doonayna inaan xalinaa wuxuu yahay in maxay iyadoon si automatic ah inaynu beertaada u waraabino waxaan isticmaalaynaa ugu muhiimsan sensor ama dareemaya qoyaanka ciidda markastoo ay ciiddu qalasho systemka wuxuu ku sheegayaa in ciiddu qalashay biyaha isaga si iskiisa diinimada uga furaya marka ay beertu qaadato biyaha si iskeeda ayaa device-ku isaga iska jaraya markuu dhergo ciidda shaashadan waxay ku soo saaraysaa in ciiddu maxay qoyantay marka systemka isaga diinimada ka jaraya biyaha okay daynamada la isticmaalayo ma taydii hore ii taalay baa mise idinka daynamada la imanaya waa daynamadan xaafadaha ku isticmaalno beerta in ku isticmaalno ee caadiga ah marka daynamadii ma bedelayo may bedelmayso okay waatan daynamada caadiga weeyaan ibaabkeedu weyn caadi isticmaalay okay sensorkani ma guriga oo dhan buu raacsan yahay beerta oo dhan buu raacsan yahay sensorkan featureska uu leeyahay device-keena waxaa ka mid ah in uu yahay flexible haddii ay noqoto dhanka programmingka iyo dhanka hardware-ka waxaynu kordhin karaynaa number of sensors waxaynu kordhin karaynaa qaabka wuxuu sidoo kale sheegayaa temperature-ka humidity-ga
oo kaliya ma ciidda qoyaanka ciidda ma temperature sensor ayaa ku jira humidity sensor marka waa device-ka dhameystiran weyn su'aal bal idin haya كل devices كانوا واحد استعماليان سمها electricity بس معنا سمها إن كعالم واحد وريجي واحد الله يقانو green technology إن الاستعماله solar بركام يعني قف كي بيرلي ده ها كوس وكديني وين وصلنا كمان هو إذا الباور إنه استعماله device كبير هو 5 volt وتعتبر إنه أقدر عالي قوية بركام هذه الدنيا هو لو solar system وdevelopment million وsource of power اللي بدلنا ممكن نروح كانوا super marka qofkii beeralayda ahaa wuxuu haystaa laba option inuu isticmaalo electricity iyo solar sama labadaba isticmaali karaa isagoo device-ka ka adeegsanaya marka iyagu waxay isticmaalaan machine keenan caadiga ee petrolka ayay qaar isticmaalaan qaarna ceelku hadduu yahay borehole aad u dheeriyo waxay isticmaalaan solar power marka beeralayda aan target gareynaynaa waa beeralayda ganacsiga oo inta badan waxay isticmaalayaan ceel ku shaqeynaya solar power oo biyaha u soo saaray marka systemka waxaan ugu talagalnay uu ilaaway baytarina uu leeyahay programka yar laakiin markaan ka fikirnay xaggii miyiga waxoogaa culays bay ku noqonaysa marka solar power-ka uu isticmaalayo ceelka ayaan isagana ugu talagalay uu isticmaali karayo maadaama oo wax kale available aanu ka jirin baadihii باور هدي كهاي مقالة دحديدة home based gardens كجوريها كيالا ده كرنتادي available مركا أيجو كرنتهان ويستعمال كران لكن ميجي ما دام أنا باور هاوس كرنتها أنا تشرين وحنو وقرشنا بيتري أما solar power استعمال وحن راح سنيا ميكرو كنترول كما programmable devices كه مركي عاد كورجريني سين which language is ماشي micro control kan isticmaalina waxa la yiraahdaa Arduino sifiican Arduino Uno la yiraahdo marka Arduino Uno waxa ay leedahay platform iyada u gaar ah oo lagu programmeeyo la yiraahdo IDE Integrated Development Environment marka kaasi wuxuu ku base garaysan yahay C++ marka inagoo platformkeeda isticmaalayna aynu programinay marka programkaasi waxa weeyaan customizable weeyaan inaga kolba sidaan doonno iyo degree-ga moisture-ka temperature-ka intaan doonno inaga ku programinayno oo mar walba wala bedeli karay Okay. Alright. Anigu saddex su'aalood baan idin hayaa. Horta marka koowaad waxa ay muuqataa solution kan aad keentay in potential badan leeyahay oo kaliya ku koobnayn tan beeralayda waxa tusaale ahaan ay muuqda inaad adjustment intaad ku samaysaan aad ka dhigi kartaan qaab magaalada joogno badanaa biyuhu qasabada waxa laga yaabaa dhowr maalmood mar bay soo dhacdaa taangi baa biyo laga buuxiyaa marar badan waxa loo baahdaa in taangi sare maxaa dhahday loo dalaco waxyaaba automation ku samayn kartaa wax oo customer-ka aad ku heli kartaan aad uga badan yahay waxa weeyaan in uu noqdo system automatically biyihii ku ilaalinaya mar walba taangigaaga inuu ku buuxo marka taasi waa iga fikir waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo miyaad isku daydeen maadaama aad samayseen device-kan inuu xiriir la samayn karo qayb system ah oo qofkii uu ka monitor gareyn karo ama ka daawan karo tusaale ahaan oo kale mobilkiisa ama maxaa dhahday internetka ama website portal uu kala socon karo xaaladda beertiisa iyo ma garanaysaa waxa ka socda horta systemkan waxa target koowaad aan saarno waxa weeyaan beeralayda imika markaanu eegno waxaanu eegnay systemkan department ku sayaar ka jira sida ugu fudud ay u isticmaali karaan nooca ay wala jaan qaadi karaan teknolojiyada haddii aynu eegno muxuu imika aynu soo baadhno aynu dhahno system ay isticmaali karayaan oo teknolojiyada la xiriira oo qolada agriculture ku isticmaali karaan beeralayda horta waa uu yar yahay imika kan wuxuu u fududeynaya user interface haddaynu sameyno ama monitor u sameyno qofkii beeralayda joogay way ku adkaanaysaa inuu isticmaalo oo waxa laga yaabaa inaanu aqoon u lahayn computer inaanu smartphone isticmaalin waxa weeyaan marka waxa weey system loo jaan qaadi karayo manual inta u horeysa marka tusto ku train garayso maalmaha horeeya wixii ka dambeeya waxa weeyaan waa in la socdo oo ndendey qaab uu shaqeynayo oo kaga maarmo maxaan dhahdaa habkii manualka laakiin mid ma ku daraya waxa
system yar oo fudud oo kale ayaynu muxuu ahaa uu ku ogaan karaa qofku oo kuma isagoo aan maamulay dhaqaaqa socda kaasina wuxuu ku xidhan yahay in la helo GSM chip kaasoo loogu xidhayo device-ka GSM-ka loo gelinayo in qofka aan smartphone haysan application oo kale ku adkaanaysa mobilka qofka haysta waxa la sameeyaa chipka GSM-ka loogu xidho mobilkiisa kadib notification soo dhaco xilliga beertii bilowday waraabka iyo xilliga dhamays marka miyaad isku daydeen interface-kan waxaan ahayn inuu xiriir la sameeyo sidaad sheegteen maxaa la GSM modem oo kale miyuu ogol yahay hardware-ka hadda aad isticmaalayso waxa uu ogol yahay GSM-kan caadiga iyo maxay IoT devices-ka in IoT laga dhigo laakiin sida wadankeenu intaaba wadanka ma dhex yaalaan iminka maxaad GSM-kana dabcan ma yaalaan marka inaynu dalbano kordhino mooyaane mar dhow oo development-iga aynu ku darsano mooyaane iminka kulli available maaha IoT-daasina waxa weeyaan waa qorshaha fog aynu leenahay inaynu ka dhigno IoT based kaasoo lagu samayn karayo monitoring future tech iyo programkiinaba waan idin bogaadinayaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaad hirgelin doontaan waa barnaamij aad u fiican runtii waxaad u soo dhigteen qaab business oo macquul ay tahay inaad iibin kartaan halkana waxaa iga muuqda suuqa aad target garaynaysaan farmers beeraleyda greenhouse-yada dad kale guryaha beeraha ka samaysan iyo cooperatives-ka ama iskaashatooyinka waa population aad u ballaaran ama target aad u ballaaran haddana waxaa target revenue-giina sanadka koowaad waxaa ka muuqda conton inaad iibinaysaan shay kontonkaa shay maydaan sheegin afartaa taargada kala duwan ka laga iibinayo mar labaadka 525 ayaad systemkii siinaysaa marka gurigayga tusaale ahaan ay 20 geed ka beereen ama 20 geed iyo beerta greenhouse-ka ah iyo beerta open irrigation-ka ee ballaaran ee intaasoo maaragtay maxay ah ma waxay u wada baahan yihiin wax isku mid ah mise waxay u baahan yihiin wax kala duwan sidee bay aad u wada raali gelinaysaan dadka kala duwan horta estimation-kan qaadanay waxa weeyaan ku tagaxabo actually maaha maxaan qiyaas intaad iibinayso oo sax ah sheegto laakiin waxa weeyaan saadaal weeyaan intaan iibin karna sanadka marka targetka waxaan saarnay inta aad soo sheegtay annagu waxaan iibinaynaa waxa weeyaan beertu qofka muxuu ahaa intay u leegtahay waxa weeyaan waa wuxuu isagu leeyahay laakiin waxaan iibinaynaa waa device-kuna waxa weeyaan waa device-ka hor yaala muxuu ahaa qiimaha aan soo siisanay device-ka iyo service-ka aan bixinayno ma ku base gareynaa laakiin beerta weyn iyo beerta yar hal device oo isku mid ah wada isticmaalayna cost-ka uu ka muxuu ahaa leedahay muxuu ahaa dhowr geed aanoo leh sidaan dhowr ka boqol iibsanaya dhowr ka boqol waxay kaaga baxayeen si kala dadban bay kaaga baxayeen biyo kaaga baxayeen waxa geedaha waxa beertay waxa weeyaan qurxin oo kale sidoo kale hadii ay dhir muxuu ahaa midho laga cuno ay leeyihiin inaad midho ka cunto taasi waa effort iyo cost kaaga baxayay sidoo kale marka ha ka eegin qiimaha koobaad laakiin waxaad ka eegtaa biyaha uu ku safe gareynayo iyo maxay dhahdaa waxa production wuxuu ku soo saaray hadhow aad baad mahadsan tahay marka yani qaab ganacsi wax loo eegayo had iyo goor cost structure-ka ama sida loo dhigo qiimaha waxaa aad macquula dadka kala duwan ee baahiyaha kala duwan qaba inay had iyo goor qiimo kala duwan helaan oo tusaale ahaan capacity-gii uu beer weyn ku supply gareynayay haddii ay uu supply gareyn karo beer tusaale ahaan 1 kilomitir tayar miyaa loo waayay wax ka yar oo ka fudud oo tusaale ahaan oo kale $100 ama $150 oo deedna ay suurtagal tahay inay ka iibsadaan like Hargeysa 20,000 oo guri oo Hargeysa ku yaal marka halka tusaale ahaan ka target garanaysa konton meheradood ama konton beerood oo 500 ka siista inaad target garayso 20,000 oo guri 30,000 oo guri 100,000 oo guri marka iyo haddana beerihii faraha badnaayee ka jiray magaalada daafaheeda goobaha maarka beeraha beero aad bay u fara badan yihiin
waana very potential waxaa laga yaabaa inaad heshaan 100,000 oo customer marka haddaad wada 500 ka dhigtaan suurtagal miyay tahay inaad dadku wada siistaan su'aal aad u wanaagsan weeyaan haddii aad garanaysaan mooye Arduino control-kaas aan haysan wuxuu leeyahay maxay dhowr nooc oo kala duwan sizeskoodu kala duwan yihiin qiimahoodu maxay kala duwan yihiin marka waa fikrad wanaagsan weeyaan waxyaabaha inuu uga qayb galayno maxaa la yiraahdaa tartankan oo kale waxa kamid ah inaynu helno fahankii aynu maxay wax ku bilaabi lahayn Soomaa imka kaas aynu helayna available ah dadana mar dhow haddii aan helno insha Allah ama defan ka baxsan ka ama ka tartanka insha Allah inaynu sameeyno choices fara badan kuwaasoo ka jawaabaya baahiyaha sektorada kala duwan ka jira insha Allah saasan si xabjinaya sax dib ugu weydiisay beer horta ma jirto saan filayo 1 kilomitir noqonaysa beeraheen beer hadda 1 kilomitir iyo waxa ku dhawaato ama hektar baa loo xisaabiyaa saan filayo waxay noqonaysaa beer roobaad oo roobkiisu gusay inagu waxaan u isticmaalnaa imka kala arbakhido oo kale muxuu ahaa dhulka kuwaasoo beer roobaad roobkiisu gusay laakiin beerahan kale muxuu ahaa ku baxa beer waraabka cabirkoodu waxa weeyaan muxuu ahaa inta imgaas sheegtay uu ka yaraanaya adugu bato waxa weeyaan I think 400 meter square inuu yahay marka 400 meter square waxa laga yaabaa in beertu kala yeelato sectionno kala duwan oo ninka isagoo muxuu ahaa soo ootay meel weyn inuu qayb u beero taasoo kale waa macquul laakiin inay beertu isku wada furnato oo ay muxuu ahaa ballaarato way yartay beer roobaad bay noqonaysaa runtii su'aasha buralaha dan dib ugu yar noqdo aniga gurigayga iyo beerta weyne ku taala banaanka way kala duwan yihiin marartii waxaan filayaa inaad ku adkaysataan yani waxbaan ka baranna halkan oo different versions ayaan mustaqbalka soo bandhigi doonaa guriyaha wax loogu talagalay beeraha wax loogu talagalay because of way kala duwan yihiin waxa laga yaabaa inaad oran kartaan beertu waxay u baahan tahay intaas oo sensor oo fara badan guriga yarina wuxuu u baahan yahay intaas oo sensor oo kooban that's why qiimayaashu ay u kala jabnaan karaan oo guriga uu noqon karo $100 beertuna ay noqon karto $1,000 marka taas kulay inay soo cadaato waa muhiim su'aasha kale weydiina waxa weeyaan competitors-ka waxa tiraahdaa ma jiraan waxaan aqaanaa qoliyo software isticmaala oo ma aha biyaha kaliya macna pesticides-ka iyo cayayaanka haday ku soo bataan haddii nutrients-ku ku yaraadaan sheegayo oo qofku isagoo halkaas ka fadhiyo website-ka uu ka arkayo beertiisii oo kameradihii iyo wax waliba isku wada xiran yihiin marka miyaad aad u daraasayseen magaalada mise waxaad aragteen inaad idinku tihiin number 1 aan kugu soo celiyay su'aale qoladaasi ma irrigation ba ma waraabin ba waraabinta pesticides-ka beeraha inagu waxa ugu weyn in controlling waxa weeyaan maxay waa biyaha irrigation-ka weeyaan site-ka scope-ka weeyaan aad baa mahadsantihiin kooxda future tech waxaan sugaynaa wareegii u dambeeyay qiimeynta ama wareegii labaad ee qiimeynta oo stage ay ku dhaafayeen waxa isku soo noqon doona marka saddexaad balse horta waxaan ku wareejin doonaa guddiga waxaan ka bilaabi doonaa dhinaca bidixda Dr. Aydruus kooxda future tech maxaad ku qiimeysay maxaa dhibcahaagii hore markii hore aad siisay iska bedelay okay kooxda future tech markaan arkay si su'aalo uga jawaabayaan iyo sidoo u fahamsan yihiin natiijadii hore aan siiyay wax ku kordhin 15 marka waxaan siiyay 85 aad baad mahadsan tahay Dr. Farxaan injineer Farxaan 5 baan ugu daray 9 waa tahay injineer Cabdirashiid anigu natiijadeedii hore waxba iskaga bedelin waxaan jeclaan lahaa runtii aad u jeclaan lahaa inay qaybta software iyo meesha lagu soo bandhigayo inay target gareeyaan taasa maxaa lahaaday recommendation runtii ugu weynaa si lahaa weeyaan waa tahay xukuumad daran waxna kama bedelin waa tahay Cabdiraxmaan Ali Xirsi waxaan ku daray 10 marka 80 bay maraysaa aad baad mahadsantiin waxaan jecelahay in sacabka gula sii dhaweysaan kooxda future tech daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada ee sanadka 2021 waxaanan
ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca surqaadii iskudubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qayb qaatay ilaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye